كلا شركة لا في كلا شركة بسم الله الرحمن الرحيم. حبلها لبدا قولي برلمانka federaalka Soomaaliya مسؤولينta dowlad goboleedka Galmudug heer wasiiro iyo xildhibaano madaxda gobolka madaxda maayarka ugu horeeya odayaasha dhaqanka salaadiinta dhalinyarada gabdhaha ciidamada qalabka sida fanaaniinta saxaafadda iyo dhammaan magac kasta oo lagu joogo oo laga soo qayb galay munaasabadan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee nagu soo dhaweeyey soo dhaweynta qiimaha badan ee aan loo kala harin ee runtii muddada dheer qorraxda taagnaa ee muddada dheer halkaas kulaylka joogay waxaan leenahay walaalayaal waadan xasuusan doonaa sida aad noo soo dhaweyseen iyo niyadsamida iyo qalbiga aad noo muujiseen. waxaan rabaa inaan dhammaan u mahad celiyo maadaama ay degmooyin kala duwan ka soo qayb galeen guud ahaan shacabweynaha reer Galmudug gaar ahaan shacabka reer Dhuusamareeb ee door shariifa soo qaatay. mahadcelinta soo dhaweynta kadib waxaan rabaa halkan inaan ka bogaadiyo shirkii dib u heshiisiinta Galmudug ee ku guulaystay magaalada Dhuusamareeb oo bogaadiyo shirkaas. وأنا مع الألوية كدوراء كعندك كجيستين كبدلين كريين وجيستين وهو الرئيسة هو الريان مدحنا الدولة كرال كصوماليا وكنت حلوي الدماء الآدي باللارن قدم مشرحة وإنك الجارسية هر الله مدحنا الدولة جولين الملك والدعاوين كجيستين كبدلين كشكلين غير جلبي حتى الرسولين هذه Galmudug loo dhowahay lagu heshiisiiyo. sidoo kale waxaan uga mahad celiyaan rabaa hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca oo difaaca dalka iyo isu keenida reer Galmudug gacan mid laga soo jeestay oo taariikhda cusub doonta. waxaan rabaa inaan mahad celiyo guddigii dib u heshiisiinta iyo salaadiinta qiimaha badnaa iyo madaxdii dhaqanka ee soo hooyey guushaas iyo safgaradkaas iyo midnimadaas. waxaan rabaa inaan si ugu dambeyn mahad gaara u celiyo shacabka reer Dhuusamareeb soo dhaweyntii iyo martigelintii iyo sharaftii ay ka muujiyeen shirkaas. intaan baan inta uga baxa walaalayaal shacabkii iyo safarkii wuxuu ku saabsan yahay ololaha doorashada Galmudug ee lagu doonayo in lagu helo hoggaan Galmudug u horseeda nabad wadajir iyo midnimo. walaalayaal haddii ilaahay qadaro oo aan xilka gudoomiyaha Galmudug qabto hoggaankeeda waxaan rabaa inaan halkan ka ballan qaado ilaahay idinkii anigu waxaan ku shaqayn doonaa oo hoggaanka aan raadi doonaa siyaasad degan oo la shaqayn karta dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dhammaan cid kasta oo muhiim u ah danaha Galmudug. ma naga doonto siyaasadda iyo hanaanka hawsha Galmudug siyaasad go'doon ah oo aan ka turjumayn maslaxada iyo hadafka reer Galmudug maanta laga yaalla.
kaasoo wax walba oo horumara saldhig u ah in la helo degenaansho siyaasadeed haddii taa la helo waxaan ku dhaqaaqi doonaa xoreynta deegaanada oo loogu horreyso deegaanada ku jira cadowga ama nabaddiinka gacantooda annagoo kaashanayna hay-adaha qaranka hay-adaha amniga qaranka meelaha nala taageero dhinaca amniga iyo dhammaan hay-ad kasta ama masaafaadkeeda ku jirto oo dhinaca amniga gacan laga siiyo sidoo kale waxaan amniga ku filin doonaa galmudug oo dhan insha allahu tacaala dhinaca dibadhiska waxaan ku dhaqaaqi ka saari doonaa dibadhiska galmudug oo waxa kaliya oo ka hormaraya ay yihiin amniga kaasoo ayaa la kaashan doona dhinac kasta oo cid kasta oo dalkeeda ku jirta gacan laga siinayo sidoo kale waxaan soo celi doonaa adeegyadii bulshada oo runtii ah baahida ugu weyn ee ay shacabkeenu maanta qabaan walaalayaal waxaan ku dhaqaaqi doonaa aan ku celinayaa ilaahay idankii uu ka ilaaliyaynaa galmudug inaan marnaba loo isticmaalin ama loo adeegsan wax dana gaara lagu gaarayo oo aan ahayn danta galmudug waxaan ka digaynaa in loo isticmaalo jaanjar lagu gaaro dan kale ama loo soo xawilo ama loo keeno khilaaf iyo qallafo siyaasadeed ma qaadi karto galmudug khilaaf ma qaadi karto galmudug dibudhac ma qaadi karto galmudug go'yoon waxaan leenahay walaalahay aniga horaa u sheegeen aniga maahi nin ka tirsan koox gaar ah mana ahi ninay ku wareegsan tahay koox gaar waa iswaraysan doonaa waa wada joognaa qaybaha bulshadana was arkaynaa mar raba inaan khudba dheer meeshaan ka jeediyo waktiga kuliya wax badanna waa la taagnaa aad iyo aad mar labaad waan idin mahad celinayaa niyaddii qalbi wanaagga kalsoonida aad noo boojiseen waana iswaraysanayna insha allah qaybaha kala duwan ee bulshada taladiina iyo tilmaamihiina iyo maslaxadiina iska waraysanaynaa reer galmudug insha allah aad iyo aad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Happy